Sheekh Ibrahim Cabdulliif Sheekh Maxamed ayaa la yiraahdaa waxaan ka mid ahay culimada imaamiinta ee magaalada Mandheera ayaan ka mid ahay shacabka waxay u soo dacwoodaan oo dawladda iyo muxuu ahaa u dhaxay shacabka waxa u dhaxay waa culimada waxay ka mid yihiin madaxda shacabka ayay ka mid yihiin aniga waxaan rabaa inaan la hadlo dhowr qodob inaan kaga hadlo dadka walaalahayga mas'uuliyiinta ila mid ah oo muxuu ahaa dawladda ku jiro ama county-da ha ku jiro muxuu ahaa ama dawladda kale oo national government ha ku jiro ayaan rabaa inaan dareensiya oo Mandheera ka soo jeeda ama Wajeer ka soo jeeda ama Gaaris ka soo jeeda isku jinsiga nahay oo Soomaaliyeed oo madaxda walaalayaalow idinka mas'uulka ah shacabkan waan u dhaarateen mas'uuliyadoodii idinku Ilaahay idin kala xisaabtami doona mid maanta adduunyaan joogna berrina waa aakhira Ilaahay wuxuu idin weydiin doonaa shacabkan oo idinka idin soo doorteen ayuu idin weydiin doonaa shacabkii dhibay qabaan waa dad masaakiin ah xoogooday ku noolaayeen xoogii maadaama uu ku noolaayeen waxa imaaday caqabooyin badan ayaa imaaday oo waxa la diiday kulankii oo in muxuu ahaa dad 2 ama 3 ka badan meel ay ku kulmaan ayaa la diiday xayiraado badan baa yimid oo dawladaha caalamka oo dhan ay soo rogeen oo Kenya kaliya aan ahayn ama muxuu ah dawladaha xuduudka lahayn aan kaliya aan ahayn dhibka markuu yimaadana dawladihii caalamka nin walba shacabkiisa ay u gurmaday oo waxay dhiibeen dawladihii caalamka shacabkoodii oo masaakiinta oo gaajaysan inay bixiyaan muxuu ahaa nolol maalmeedkii inay wax ka bixiyaan raashin ay qaybiyaan shacabkana waxa u maqan dadka madaxda ahaa Mandheera ama Wajeer ama Gaaris laga soo doortay ayaa u maqan idinka u maqan bacda Allah subhanahu wa ta'ala ilaahay kadib marka annaga waxaan rabnaa inaan xasuusino dadka walaalahanada ah oo madaxda ah sida culimada aan u xasuusinayno inuu shacabkooda ay u hadlaan u naxariistaan markay shacabkooda ku soo cabaadaan idinkana waxaan leenahay madaxdii annada ayaa tihiin idinka mas'uuliyadii wadanka u dhaarateen idinka mas'uuliyadii wadanka haysaan shacabkiina ku soo noqda u imaada gaajada la qaybsada dhibka la qaybsada wixii awoodiina ay tahayna u naxariista maxaa yeelay maanta haddii aan iska xijaabno shacabkanadii oo in arki waayaan oo muxuu ah madaxdii wadanka laga soo doortay ay arki waayaan adigana maalin aan hadda maanta ahayn buu Ilaahay iska ka xijaabi doonaa waa sida nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu noo sheegay marka sidaa darteed waxaan leenahay wadankii dhib baa ka jira baahiya dadka shacabka waxay ahaayeen garab ku guur ay ahaayeen maalintii waxay soo shaqaystaan ay heli jireen maadaama labadii xuduud hadda ay hakad gashay meesha rabta ka gasho ama dawladda rabta ha samayso dadkii walaalihii ahaa ee shacabkanadii ahaa dadkanadii ahaa Mandheera ku noolaa waxa soo wajahday gaajo haddii 2 toddobaad ama 3 toddobaad soo socota Ilaahay baa yaqaan waxa imaan doona berri sida hadda aan u jeedno ku sii socoto shacabkan inta laga cararayo cudurka hadda la adduunka ka cabaadayaan oo corona laga cararaya oo inta corona uu dilay ka badan inay gaajo disho ayaa laga cabsi qabaa sida darteed waxaan idin leenahay walaalayaalow madaxdanadahow haddaad maqlaysaan codkanada aad maqlaysaan shacabkiina u gargaara kaalmo u keena meel walba oo albaab walba u garaaca sida shacabkan loo noolayn lahaa ee cunto u heli lahaayeen raashin u heli lahaayeen biyo u heli lahaayeen daawo u heli lahaayeen idinka Ilaahay subhanahu wa ta'ala madaxdooda ka dhigay marka waxaan in ka codsanaynaa dadka walaalaha muxuu ahaa dawladda ama dhexe ama dawladda county-da ku jiro shacabkii dhib u qabaa anagu nagu soo cabaday anagu noo sheegtay afkoodan ku